halkani waa BBC saacadda Afrikada Bari waa 2 duhurnimo oo gow ah waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com duhur wanaagsan asxaabta hawada nagala xiriirtay qodobada idaacadeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Shiinaha oo u baroor diiqaya dadkii u geeriyooday cudurka corona madaxweynaha Cameroon oo ay dadkiisu la yihiin xilli dalkaasi uu la tacaalayo fayraska corona isla cudurkaasina wuxuu sababay hoos u dhac ku yimid ganacsiga magaalada Mandera ee ku taalo saddex geesoodka Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya guri kiraan ku jirna 10 kun aan guriga aan ku kiraysan waa nagala rabaa ilmo masaakiin aan korsana agoomaan korsana dad cuuriyaama aha jir dad waa yeelaha jir waxa inta irsaaqad looga raadinaa waa qudaartaya walaac laga qabo in cudurka COVID-19 saameyn ba'an uu ku yeesho dadka tabarta yar ee ku nool Soomaaliya iyo dabcan wararka ciyaaraha idaacadda waxaa si wada jir ah u soo saaray Samiiro Cabdullaahi Jaamac iyo Ciise Xaaji Cabdulle anigoo Bashir Nuur Maxamed ahna waan idin daadihin doonaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Cabdirasaaq Xaaji Catoosh maasanid Bushra dalka Shiinaha waxaa maanta loo baroor diiqay dadkii ku dhamaaday cudurka COVID-19 iyadoo dadku ay 3 daqiiqo oo aamusnaan galeen dalka oo dhanna waxa uu galay hakad qiyaastii 10kii subaxnimo xilliga dalka Shiinaha dadka iyagoo taagan ayay aamusnaayeen waxaana laga dhawaajiyay hoonka gawaarida Shiinaha waxaa si rasmi ah loo diiwaan geliyay 3300 oo qof inuu cudurkan dilay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisa uu ku talinayo in dadka Mareykanka ay xirtaan marada afka lagu duubo si looga taxadaro xanuunka coronavirus balse Trump lafanaantiisa ayaa sheegay inuusan isagu rabin inuu xirto afduubka sanka iyo afka lagu shareero marka uu salaamayo madaxweynayaasha kale ra'iisul wasaarayaasha boqorada iyo madaxda kale ee aqalka cad ku soo booqda ra'iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ayaa la filayaa inuu kordhiyo bandowga looga hortagayo cudurka coronavirus ugu yaraan 2 isbuuc oo kale oo ah ilaa 26 bishan Abriil isbuucyadii la soo dhaafay dhimashada dadka corona uu ku dilay dalkaasi Spain maalinkiiba waxay dhaaftay 800 oo qof dalka Senegal maanta waxa uu u dabaaldegayaa maalinkii uu xorriyadda qaatay balse ma jirin wax damaashaad ah oo loo sameeyay xanuunka coronavirus dartiis dalka Senegal waxa laga helay ilaa 200 oo qof oo xanuunka corona qaaday wuxuuna dalkaasi dagaal kula jiraa la tacaalida cudurkan adduunka dhan aafeeyay Cameroon waxa si kordhay tirada dadka uu cudurkan corona ku dhacay oo gaartay in ka badan 500 oo qof waxa si aad loola yaaban yahay hadal la'aanta madaxweynaha dalkaasi Paul Biya oo isagu dhibkan aanba ka hadlin intii muddo ahaydba siyaasi mucaaradka u hadlay ayaa aamusnaanta madaxweynaha xilli uu dalkan dhib ku jiro wuxuu ku tilmaamay mid dambi ah ugu yaraan dalka Masar waxaa la soo sheegayaa in la karantiilay oo cudurka coronavirus laga helay 2 dhakhtar iyo 12 kalkaalise oo ka shaqaynayay isbitaal cudurka kansarka lagu daweeyo isbitaalka ayaa hadda la xiray waxaana la raadinayaa baa la yiri oo waliba hubanti laga dhigayaa in la baaro shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalkan kansarka lagu daweeyo ka shaqaynayay isbitaalka waxaa la sheegay in isniinta dib loo furi doono balse wuxuu qaabili doonaa bukaanka degdeg ah oo kaliya warkii dunidana waa naga intaas Catoosh aad ayuu u mahadsan yahay dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka aan ku bilownay sidaad warkaba ku maqlayseen Shiinaha ayaa u baroor diiqaya dadkii u geeriyooday cudurka corona in ka badan 3300 oo qof ayaa dalkaasi ugu dhimatay cudurka halkaasi oo markii horeba uu ka bilowday dhanka kale Spain ayaa diiwaan gelisay tiradii ugu yarayd ee hal maalin ah dalkaasi ugu geeriyootay cudurka wararkii ugu dambeeyay corona waxa inoo haysa Samiiro Cabdullaahi Jaamac kuuriyada koonfureed ayaa lagu wadaa in ay muddo 2 toddobaad ah ku kordhiso shuruucda ku aadan kala fogaanshiyaha dadka iyadoo uu fayraska ku sii baahayo halkaasi inkastoo
tirada ay haatan hoos u dhacday. wasiirka caafimaadka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in aan la yareyn doonin xayiraadaha ilaa ay hoos u dhacaan kala bar tirada cusub ee maalin walba uu cudurka soo ridanayo. maanta oo kaliya ayaa lagu soo waramayaa 94 kiis oo cusub, waxaana isku darka tirada ay noqonaysaa 10,156 halka 177 qofna ay u dhinteen fayraska. dowladda Shiinaha ayaa maanta samaysay 3 daqiiqo oo aamusnaan ah oo loogu baroordiiqayo dadkii Shiinaha ugu geeriyooday fayraska oo dalkaasi ka dilaacay dabayaaqadii sanadii aynu ka soo gudubnay. baroordiiqa aamusnaanta ah waxaa hareer socday hoonka ay yeerinayaan gawaarida, hoonka tareenada iyo kan maraakiibta. sidoo kale calanka ayaa hoos loo dhigay. magaalada Wuhan oo uu cudurka ka bilowmay ayaa gebi ahaanba nalalka samaafarada waxaa laga dhigay mid casaan ah oo ay gawaarida dhan ku istaagayaan. Spain ayaa shaacisay 809 dhimasho ah, balse waa dhimashadii ugu hooseysay muddo 7 ah. dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka hor yimid xirashada maskarada wejiga oo ay u soo jeediyeen khubaradiisa dhanka caafimaadka. Mareykanka ayaa lagu eedeeyay in uu leexsaday kabsiday maskarada wejiga lagu xirto si ay u isticmaalaan shacabka dalkaasi, tallaabadaas oo lagu tilmaamay mid burcad badeednimo ah. Samiiro aad ayay u mahadsan tahay. haatanna Soomaaliya. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta cudurkaasi kula dagaalamaya gudaha wadanka Soomaaliya. Dr. Cabdirasaaq waa hogaanka nidaaminta tayada caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya, waxa uuna ka mid yahay guddi wasaaradda ay u xil saartay maareynta iyo la tacaalidda xanuunka coronavirus. qadka telefoonka ayuu ugu waramay waryahayaga Cabdifataax Ibraahim Cagayare. meelaha diyaarsan waa 110 sariiro karantiilka ah iyo 100 oo haddii dadka xanuunka uu soo rito oo ah magaalada Muqdisho. maamul goboleedyada ay dalkana xarumo ayaa laga diyaariyey oo aan hadda tiradooda kor ka haynin. sidoo kale waxaa heegan ku jiro isbitaallo kala duwan oo magaalada ah oo shaqaalahoodina loo tababaray agabka yar ay haystaan u diyaar garoobay haddii laa qadar Allah ay bilaabato in cudurku uu gudaha dalka ku faafo. alla ma keenee kiisas badan haddii ay dhacaan ma haysaan khubaradii caafimaadka oo u diyaarsan in ay durbadiiba wax ka qabtaan oo dalkoo dhana waan ahayn caasimadaha gobolada iyo Muqdisho. runtii sida dunida hadda uga dhacay iyo caqaabka culus hadduu imaado aad ayay tabarteen u liidataa. waxaan aad u wada shaqaynaa ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed iyo bahweynta caafimaadka Soomaaliyeed oo ayagana heegan inoogu jira. waa sax magaalada Muqdisho ay u badan yihiin, laakiin ilaahay inooma keeno ee waxaan runtii tallaabsanaynaa tabartu intay la eg tahay. Ditore, xog badan ma soo saartaan marka loo barbardhigo dalkiina dalal kale ee caalamka oo xataa saacad la weeyaan marka ay ka waramayaan dhibaatada cudurka coronavirus. idinkana xog badan idinkama helo, marka sababta maxay tahay? horta annaga waxaan soo saarnaa warbixin maalinla ah oo ku saabsan xanuunkan COVID-19 iyo xanuunada u eg neefqabatinka iyo qandhada iyo qufaca leh. xogta aqoon badan iyo capacity ay mararka qaar u baahan tahay oo ay ugu muhiimsan tahay in baaris dalka ay ka jirto, baaris safmar ah oo baahsan oo qof kastoo ama iska shakiya ama xaruntii laga shakiya inta la baaro natiijo lasoo saari karo. waa qodobka kalena xoogaa accessibility-ga iyo isku socodka maadaama aad loo adkeeyey waxay in yara xanibaysaa helidda xogta. waa challenge jiro oo aan maalinta ka dambaysa isku dayayna in dib loo hago. muxuu yahay marka qorshihiina ku aadan qoysaska tabarta yar ee laga yaabo inay ku jiraan xeryaha dadka soo barakacay iyo weliba kuwa kaloo aan tabar lahayn oo awood aan lahayn? su'aal aad muhiim u ah waaye. dadka Soomaaliyeed dad aad u tabar daran waaye. dad badan oo 70% ka badan ayaa taxta khadil faqri ah, gaar ahaan dadka barakacayaasha. marka barnaamij gooni ah oo wacyigelin iyo kaalmo iyo taakulayn ayaa mar hore loo diyaariyey. qorshaha qaran ee la dagaalanka iyo la tacaalka xanuunka COVID-19 waxay ka yihiin qayb weyn oo waxay leeyihiin tixgelin gaar ah. isbitaalada public ahna iyaga ay 100% u shaqaynayaan oo adeeg bilaash in la siiyo. meelaha ay degan yihiin waxaa haddaba la geeyey oo maamulada dowladaha hoose ayadoo lala kaashanayo adeegyada la xiriira nadaafadda. laakiin deegaanada qaar ma tegi kartaan oo dowladdiiba gacanta kuma hayso. haddii marka lagu arko calaamadaha cudurka oo kale maxaad halkaa ka samaynaysaa?
waa runtaa challenge aad xoog leh waaye runtii annaga dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan xaqeen ugu leeyahay adeeg caafimaad inay helaan haddii dawladda gacanteeda ay gaari weyso wadiiqa ama dariiq lagu gaarsiiyay lama weynayo insha Allah taala marka rajadiinu maxay tahay rajadeena waxa waaye aad inaan dadkeena wacigooda kor u qaadno oo aan protection badan sameeyno oo ka hortag ah haddii xanuunka si safar u imaado sida dalalka Yurubna runtii baryada Ilaahay baan badinaynaa dadaalkeena inta karaankeena juhdiga isku geenaynaa insha Allah taala hadda sida dadku ugu soo jeedaan ee dawladda Soomaaliya ugu heelan tahay waxay gelinaysaa rajo ah inaan cudurka wax ka qaban karno inta tabarteena ay leegtahay kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo u waramayay Cabdifataax Ibraahim Cagayre dhageystayaasha ka soo aarah dhibtay qodobkaasina waxaa ka mid ah Qadar Good Gardaase oo jooga Bali Gubadle waxa uu leeyahay caabuqa halista ah ee coronavirus waxa uu noqday musiibo adduunka ku habsatay oo uu caalamka u meera la'yahay daawadiisuna waxa ay ku jirtaa kitaabka Alle waa Jimcaale Cabdi oo jooga magaalada Hargeysa waxa uu leeyahay runtii xanuunkani waa musiibo aafeeyay wadamada dunida laakiin in shacab weynuhu taxadar badan sameeyaan oo ay markaasi go'aamada dawladda u hoggaansamaan ayaan kula talinayaa halkaad weli nagala socotaan dhageystayaal waa BBC kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqaliya muuqaalba leh warbixinadii ugu dambeeyey waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco moobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com waa hagaag haatanna Mandera saameynta dhaqaale ee corona ayaa aad looga dareemayaa guud ahaan dunida siba wadamada soo koraya ganacsatada suuqa bacalaha iyo hooyooyinka qudaarta ku iibiya Mandera ayaa aad uga cabanaya ganacsigooda oo uu aad u saameeyay cudurkan waxay sheegeen xiritaanka xuduudaha Ethiopia iyo Soomaaliya in ay saameynba ku sii yeesheen markaasi ganacsigooda qaar ka mid ah ganacsatada ayaa BBC-da u waramay anagoo Khayr Maxamuud Ismaan suuqa markii ay qudaarta nagala xiray wax walba xuduudaha naga kala xiray saameyn weyn ay nagu yeelato caruurihiisa cid noo joogaan oo iskuulaha nagala xiray oo dugsiga nagala fasaxay oo masaajid nagala xiray waa isjaam gareynay suuq hoos u dhac weyn naga haysto oo dib weyn aan ku qabnaa xuduudihii ay bixinay wax aan gacan ku hayna mal qudaarta ta wax naga socona mal wax naga hay aan haysanana mal intaas hoos u dhac noogu imaado noogu dhibaato badan dawladda waxaan ka codsanaynaa haday ay gacan u geysan karto ilaahay horta cudurka ilaaha keenay ilaahana qaadi kara laakiin saddexda xuduud hadda geesaha naga jirta wax dhib aan qabno mal wax cudur aan qabno malaha beeriya abad ligeli way oo lila qudaarta kama soo bixi karto marka dhibkaas weyn hadda noogu dar Alise Maxamed Cabdillah leedaha suuq waa naga xayirmi wax noo gadmaha malaha xuduudu waa naga xiran tahay awalba Ethiopia ay nooga imaanaysi Kenya qudaar nooga ma imaado qudaartii balaxa oo dadka naga gadanay waa xirmeen wax naga gadanaa malaha guri kiraan ku jirna 10 kun aan guriga aan ku kiraysan waa naga la rabaa ilmo masaakiin aan korsana agoomaan korsana dad uuriyama aha jir dad waa yeelaha jir waxa inta irsaaqad looga raadinaa waa qudaarta yar qudaartii hadda naga la xiro waxa waa noloshayna qatar ay ku suguntahay hadaba markii bandow la dhahay habeenkii dadka ganacsanaya qudaarta shiidinaya naga gadanaya ay maxay dukaamihii la xiray wax naga gadanaaba malaha qudaarta subax kasta markaan keen intaan daadinayna intaan gadayna waa kala dhig intaan daadinayna badan marka waxa waaye dib weyn arintiida nagu haysa waxa waaye diyaaradahan maalin walba dadka jirnoo keenan inay dawladda naga joojisaan u baahanahay marka waxaan rabnaa dawladda inay maxay ahaydayta ilaahay aan baryayna waxbana arki mahayna dugsiyaha noola furo masaajidyaha noola furo irsaaqada ilaahay aan u qabnaa marka waxa waaye dib weyn anaga qudaarey hadaan hoo dad masaakiin oo qudaar ilmo ku korsanay malyan naagooda subaxdii soo kala hado qudaar ku gadata ilmaha ku korsat mid yaanyada gadi mid mooska gadi mid cambaha gadi mid daaniyaha gadi mid barbarooniga gadi mid liinta gadi intaas aan u kala qaybsanahay intaas kulli waa u baahanahay inta maxay ahayd dawladda waxaan ka codsanaynaa xuduudahana in noola furo qudaarta ay nooga imaado wixii kala reebal xawan qudaarta ay naga gadanayeen ayagana noola furo madiidahan u baahanahay magacayga waxa way Xamdi Faarax ka soo jooda xagga bacalaha askar ayaa imaaday askarta ilbaabiya waxay tiri hal rogo hal xira risonka loo xir lahayna hadda coronavirus ayay sabab
ka dhiganayaan ummadda haddii dukaamadooda laga xiraayo waxaa loo baahan yahay walaalyaalow haddii cudurkan uu yimaaday intaan yacni haba yaraatee iska bibiidheysta oo dabka ku shita laakiin dawlad dhahaysa ilbaabyaha idiin xiraaya waxaad dab ku shidanaysaanna ma lahan dawladda Kenya aniga saas kamaan fiilanaynin waxay dhaheen side by side dhinacba ha furnaada maalin dhinacna ha furnaada maalin ani hadda maanta dhinaceeda waan furtay waxba ma helin berri haddana ha imaadina lidhay aqli ma noqonaysa dad baa 3 days saddex beri waxba aan helaynin kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah ganacsatada Mandera oo BBC-da uga waramayay saameynta dhaqaale ee uu ku yeeshay cudurka corona. haatana dhageystayaal Cameroon qaybo badan oo Afrika ka mid ah waxa laga walacsan yahay saameynta uu durbaba ku yeeshay xarumaha caafimaadka cudurka corona. Cameroon tirada kiisaska waxay kor u dhaafeen ilaa 500 oo qof waxaana lagu soo waramayaa inay 8 qof u dhinteen cudurkan. iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana reer Cameroon waxay la yaaban yihiin madaxweynaha dalkaasi ee aan weli ka hadlin wax la xiriira cudurkan. wararka amurtaasi la xiriira waxay noo soo diray tafatiraha BBC-da ee dhanka wararka Afrika Will Ross waxaana soo jeedinaya Ciise Xaaji Cabdulle. kasakow sawir muujinaya shir uu bisha la soo dhaafay la qaatay safiir iyo hal fariin oo soo dhigay baraha bulshada ay ku wada xiriirto taasoo dadku ku boorinaya inay raacaan talaabooyinka dawladda ee ku aadan cudurka coronavirus ayaanay jirin wax xog ah oo laga helay madaxweynaha 87 jirka ah Paul Biya inta badan dadka kama soo hormuuqdo waxa uuna waqtigiisa badan ku qaataa hotel raaxada ah oo ku yaala dalka Geneva hase aatee waxay dadka la yaabeen hoggaan muuqda oo aysan ka arkin madaxweyne awood haystay muddo 37 sano ah hogaamiye mucaarad oo lagu magacaabo Maurice Kamto ayaa ku tilmaamay aamusnaanta madaxweyne Biya xilli xaalad xasaasi ee qaranka ay ka jirto inay tahay mid dambi balse sarkaal xisbiga madaxweynaha u hadlay ayaa sheegay inay aamusnaanta ay tahay mid caqli ku dhisan. ciise aad ayuu u mahadsan yahay dhageystayaasha kasoo fikra diibtay qodobkaasina waxaa ka mid ah iyo guud ahaan cudurka corona. Nimcaan Jaamac Maxamed oo jooga Burco wuxuu leeyahay cudurka coronavirus runtii waxa uu noqday mid dunida oo dhan ku sii faafaya oo la xakameyn kari la'yahay waxaase loo baahan yahay inay dadku qaataan talooyinka caafimaadka ee loo soo jeedinayo si loo yareeyo faafitaanka cudurkaasi halista ah ee coronavirus. Maxamed Cabdi Xalanne oo jooga Hargeysa waxa uu leeyahay hoos u dhaca ku yimid ganacsiga waxa uu kasoo fikrad diiwanaya ganacsigii hoos u dhaca ku yimid ganacsiga magaalada Mandera waxa uu leeyahay ganacsiga ku yimid magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi bari Kenya xanuunka corona awgii waa mid ay la qabto dhammaanba deegaamada Soomaalida waxaana rajeynayaa inuu alle naga salaamad yeelo ayuu leeyahay. aad ayay u mahadsan yihiin dhageystayaashaasi. haatanna haddaan eegno ciyaaraha kooxaha ugu sarsare ee horyaalka kubadda cagta Ingiriiska ayaa ku heshiiyay inay markaasi soo bandhigaan mushaar dhimis 30% ah in lagu sameeyo ciyaartooyda kubadda cagta si wax looga qabto saameynta dhaqaale ee cudurka coronavirus. maalmihii ugu dambeeyay ciyaartooyda Premier League ayaa loogu baaqayay inay mushaarkooda ka jaraan lacag ay si toos ahna ugu wareejiyaan waaxda caafimaadka ee NHS taas oo muran ay muddo ka jirtay kadib ayaa markaasi kabtanada dhammaan 20 koox ee kulan dhinaca internetka ah ay ka yeesheen arintan. dhanka kale waxaa jirtay dhaleecayn ku aadan qaabka kooxaha ka dhisan UK ay ugu markaasi gaabiyeen ka hortagga cudurka corona. haatanna baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Samiir Cabdulaahi Jaamac Samiir. mahadsanid Caasha. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Cabdi Baadil Axmed oo jooga xerada qaxootiga ee Holhol waxa uu baafinaya dadka kale ah Maxamed Cabdi Baadil, Xasan Cabdi Baadil iyo Faadumo Cabdi Baadil. dhammaan dadkaasi waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Jigjiga sanadii 2011. hadaba hadii ayna maqlayaan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Cabdi Baadil Axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Holhol. xaawo Cusmaan Jeelle oo joogta Yemen waxay baafinaysaa dadka kale ah Luul Cusmaan Jeelle, Leyle Cusmaan Jeelle iyo Maxamed Cusmaan Jeelle. dhammaan dadkaasi waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Beledweyne 2006. hadaba hadii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo xaawo Cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen. Dheeg Xasan Cadde oo jooga
xerada qaxootiga ee holhol waxa uu baafinayaa Bashiir Cabdi Cali Nuur waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Jigjiga sanadii 2008 haddaba haddii uu maqlayo Bashiir Cabdi Cali Nuur ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Dheeg Xasan Cadde iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee holhol amaba telefoonka nambarkiisu yahay 253773 Abuukar Cali Eenow oo jooga Yemen waxa uu baafinayaa Muumino Cali Eenow, Bashiir Cali Eenow iyo Maryan Cali Eenow waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Baydhabo 2008 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Abuukar Cali Eenow ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Yemen. Cabdiwali Yuusuf Axmed oo jooga xerada qaxootiga ee holhol waxa uu baafinaya Ayuub Yuusuf Axmed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Talyaaniga sanadii 2009 haddaba haddii uu maqlayo Ayuub Yuusuf Axmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cabdiwali Yuusuf Axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee holhol. Suleymaan Guuleed Cumar oo jooga Yemen waxa uu baafinayaa Mustafa Guuleed iyo Suleekha Guuleed waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Boosaaso 2005 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Suleymaan Guuleed ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen. Cabdiqaadir Yuusuf Dheeg oo jooga xerada qaxootiga ee holhol waxa uu baafinayaa Maxamed Yuusuf Dheeg waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen sanadii 2017 haddaba haddii uu maqlayo Maxamed Yuusuf Dheeg ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cabdiqaadir Yuusuf Dheeg iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee holhol. Asli Cabdalla Salaad oo joogta Yemen waxay baafinaysaa Fartuun Cabdalla Salaad iyo Maxamed Cabdalla Salaad waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Balcad 2003 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Asli Cabdalla Salaad ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen. Safiye Ibrahim Cabdi oo joogta xerada qaxootiga ee holhol waxa ay baafinaysaa Cabdiraxmaan Axmed Cabdulaahi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Jarmalka sanadii 2018 haddaba haddii uu maqlayo Cabdiraxmaan Axmed Cabdulaahi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Safiye Ibrahim Cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee holhol amaba telefoonka nambarkiisu yahay 95377468 Aamina Isaaq Cabdi oo joogta Yemen waxay baafinaysaa Neley Isaaq Cabdi iyo Xasan Isaaq Cabdi waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Baydhabo 2004 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Aamina Isaaq Cabdi ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen. Axmed Cabdulaahi Guuleed oo jooga Ethiopia waxa uu baafinayaa Zakariye Cabdulaahi Guuleed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Turkiga sanadii 1998 haddaba haddii uu maqlayo Zakariye Cabdulaahi Guuleed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Axmed Cabdulaahi Guuleed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Ethiopia. Faadumo Cali Jimcaale oo joogta Yemen waxay baafinaysaa Shukri Cali Jimcaale iyo Mahad Cali Jimcaale waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Muqdisho 2007 haddaba haddii ayna maqlayaan ma bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Faadumo Cali Jimcaale ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen. Nimco Maxamed Xasan oo joogta Addis Ababa waxay baafinaysaa Ridwaan Maxamed Xasan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Sacuudiga sanadii 2002 haddaba haddii uu maqlayo Ridwaan Maxamed Xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Nimco Maxamed Xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Addis Ababa. Shamso Cawil Aadan oo joogta Yemen waxay baafinaysaa Xaawo Cawil Aadan, Xalimo Cawil Aadan iyo Maxamed Cawil Aadan waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Muqdisho 2008 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Shamso Cawil Aadan ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen. Faadumo Cabdi Yuusuf oo joogta xerada qaxootiga ee Cali Cadde waxa ay baafinaysaa dadka kale ah Cabdi Yuusuf Dhagaqoole iyo Aamina Cabdi Baaruud
waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan maraykanka sanadii 1994. haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo faadumo cabdi yuusuf iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee cali cadde. mahdi bare daahir oo jooga yemen waxa uu baafinayaa ayaan bare daahir, sucaado bare daahir iyo khadra bare daahir. dhammaan dadkaas waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan kismaayo 1999. haddaba haddii ayna maqlayaan maba jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo mahdi bare daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen. mawliid axmed maxamed oo jooga xerada qaxootiga ee holhol waxa uu baafinayaa dadka kale ah cabdiwaasac mawliid axmed, mahad mawliid axmed, asad mawliid axmed iyo canab xuseen bulaale. dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalkani kenya sanadii 2008. haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo mawliid axmed maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee holhol. cabdiraxmaan xasan jiini oo jooga yemen waxa uu baafinayaa shukri xasan jiini, faarax xasan jiini iyo qamar xasan jiini. waxaa ugu wardambeysay dhammaantood ayagoo ku sugan kismaayo 2006. haddaba haddii ayna maqlayaan amaba jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo cabdiraxmaan xasan jiini iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee maqrib. maxamuud xuseen maxamed oo jooga yemen waxa uu baafinayaa axmed xasan maaj. waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan jabuuti sanadii 1994. haddaba haddii uuna maqlayay axmed xasan maaj amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo maxamuud xuseen maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka yemen amaba telefoonka nambarkiisu yahay 967771 688. shumay shaacir sheekh oo joogta yemen waxay baafinaysaa xamsata shaacir sheekh iyo shaxshaxley shaacir sheekh. waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan marko 2009. haddaba haddii ayna maqlayaan xamsata shaacir iyo shaxshaxley shaacir amaba jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo shumay shaacir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen. filsan xasan mahdi oo joogta yemen waxa ay baafinaysaa fayruus cumar saalim. waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan isla yemen sanadii 2010. haddaba haddii ayna maqlaysa fayruus cumar saalim amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo filsan xasan mahdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen. amiin suufi abaanuur oo jooga yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah bakar suufi abaanuur, cadow suufi abaanuur iyo maana suufi abaanuur. dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan marko 2007. haddaba haddii ayna maqlayaan amaba jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo aamina suufi abaanuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen. jaamac cali jaamac oo jooga yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah mahad cali jaamac iyo dunyo cali jaamac. waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan boosaaso sanadii 2006. haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo jaamac cali jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen. sahro macalin cali oo joogta yemen waxay baafinaysaa sahar macalin cali iyo saabir macalin cali. waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan muqdisho 2007. haddaba haddii ayna maqlayaan amaba jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo zahro macalin iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen. cabdulqaadir shariif cusmaan oo jooga yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah xuseen shariif cusmaan, xasan shariif cusmaan iyo aamino shariif cusmaan. dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan balcad sanadii 2008. haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo cabdulqaadir shariif cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka yemen. xalimo qaasim guutaale oo joogto yemen waxay baafinaysaa dadka kale ah faadumo qaasim guutaale, axmed qaasim guutaale iyo sucaad qaasim guutaale. waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan afgooye 2003. haddaba haddii ayna maqlayaan mabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo xalimo qaasim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen.
cali cumar axmed oo jooga yeman waxa uu baafinayaa burhaan jaamac mooge waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan hargeysa haddaba haddii uuna maqlayo burhaan jaamac mooge amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiya cali cumar axmed iyadoo wixii waraa loo sii marayn karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yeman. cabdinaasir shirwac dhaqane oo jooga yeman waxa uu baafinayaa cabdisamed shirwac dhaqane batuulo shirwac dhaqane iyo barni shirwac dhaqane waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan beledweyne 1993 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo cabdinaasir shirwac dhaqane iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yeman. bilan caraaya nageeye oo joogta yeman waxay baafinaysaa dadka kale ah leyle xuseen gacal iyo siraad maxamed nuur waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan talyaaniga sanadii 1999 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo bilan caraaya nageeye iyadoo wixii waraa loo sii marayn karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yeman. maryan xuseen barow oo joogta yeman waxay baafinaysaa ruqiyo xuseen barow canab xuseen barow iyo maxamed xuseen barow waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan afgooye 2008 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo maryan xuseen barow iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yeman. baafinta ugu dambeysana waxay naga soo gaartay faadumo cali bare oo joogta yeman waxay baafinaysaa liibaan maxamed ibraahim waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan muqdisho sanadii haddaba haddii uuna maqlayo liibaan maxamed ibraahim amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo faadumo cali iyadoo wixii waraa loo sii marayn karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yeman. baafintiina maanta waa naga intaa. idaacaddii duhurnimo halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo idaacaddeenna xigto bushray dhammaan bahdii b b c da waxay idin leeyihiin sidaas iyo nabadgelyo.